Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay wakiilada beesha caalamka oo ay ka mid ahaayeen qaramada midoobay wakiilkeeda Mr. Swan iyo sidoo kale wakiilka midowga Afrika Madiera iyo midka midowga Yurub Berlanga iyo sidoo kale safiirada dalalka caalamka qaarkood ka jooga Soomaaliya runtii kulankan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxa uu faahfaahin ka siiyay wakiilada beesha caalamka diyaargarowga socda ee shirka wadatashiga qaran ee Soomaaliyeed ee la filayo in uu ka bilowdo maalinta Khamiista magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu sheegay in maaragtay xiriir fiican uu la lahaa madaxda dawlad goboleedyada had iyo jeerna uu maaragtay la hadlayay isla markaana ay u xaqiijiyeen ka soo qaybgalka shirka isla markaana uu ugu mahadcelinayo waxa uu sheegay ka ugu dambeeyay inuu imaan doono maalinta Khamiista haddii eeba idmo subaxeeda shirkana uu bilaaban doono waxa kale uu sheegay in aad uga go'an tahay in shirkan uu guuleysto oo Soomaalidu ay markan ka maqlaan wax wanaagsan isla markaana dhinacyada oo dhan uu ku boorinayo in ay la shaqeeyaan oo dhinaciisana uu diyaar u yahay inuu dhexdhexaad ka noqdo arrimaha taagan sidoo kalena uu xoogga saaro sidii Soomaaliya doorasho ay u aadi lahayd dhanka kale beesha caalamka iyaguna way hadleen waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin tallaabooyinka la qaaday ilaa iyo hadda iyo sida ra'iisul wasaaruhu uu muujiyay inuu diyaar u yahay in shirkan uu guuleysto waxay ku booriyeen in dhinacooda ay garab taagan yihiin wixii taageero maaliyadeed iyo sidoo kale maaragtay farsamo in ay gacan ku siinayaan marka qorshuhu waxa uu yahay in shirkaas la qabto haddii eeba idmo wax isbedelana ma jiro waana socon doonaa qorshihiisa guddiga ka shaqeynaya ee ka socda dawlad goboleedyada Soomaaliya iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadirna hawshii diyaargarowga meel fiican ay u maraysaa insha Allah waxa dadka Soomaaliyeed u sheegaynaa in shirkaas aan rajaynayno in wax badan ay ka soo baxaan ra'iisul wasaaruhuna uu ka go'an tahay in markan uu xaqiijiyo sidii shirkaas uu guuleysan lahaa dhammaanna wuxuu ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed inay taageeraan oo soo dhaweeyaan oo ay wixii talo iyo tusaale ay la yimaadaan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay wakiilada beesha caalamka oo ay ka mid ahaayeen qaramada midoobay wakiilkeeda Mr. Swan iyo sidoo kale wakiilka midowga Afrika Madiera iyo midka midowga Yurub Berlanga iyo sidoo kale safiirada dalalka caalamka qaarkood ka jooga Soomaaliya runtii kulankan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxa uu faahfaahin ka siiyay wakiilada beesha caalamka diyaargarowga socda ee shirka wadatashiga qaran ee Soomaaliyeed ee la filayo in uu ka bilowdo maalinta Khamiista magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu sheegay in maaragtay xiriir fiican uu la lahaa madaxda dawlad goboleedyada had iyo jeerna uu maaragtay la hadlayay isla markaana ay u xaqiijiyeen ka soo qaybgalka shirka isla markaana uu ugu mahadcelinayo waxa uu sheegay ka ugu dambeeyay inuu imaan doono maalinta Khamiista haddii eeba idmo subaxeeda shirkana uu bilaaban doono waxa kale uu sheegay in aad uga go'an tahay in shirkan uu guuleysto oo Soomaalidu ay markan ka maqlaan wax wanaagsan isla markaana dhinacyada oo dhan uu ku boorinayo in ay la shaqeeyaan oo dhinaciisana uu diyaar u yahay inuu dhexdhexaad ka noqdo arrimaha taagan sidoo kalena uu xoogga saaro sidii Soomaaliya doorasho ay u aadi lahayd dhanka kale beesha caalamka iyaguna way hadleen waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin tallaabooyinka la qaaday ilaa iyo hadda iyo sida ra'iisul wasaaruhu uu muujiyay inuu diyaar u yahay in shirkan uu guuleysto waxay ku booriyeen in dhinacooda ay garab taagan yihiin wixii taageero maaliyadeed iyo sidoo kale maaragtay farsamo in ay gacan ku siinayaan marka qorshuhu waxa uu yahay in shirkaas la qabto haddii eeba idmo wax isbedelana ma jiro waana socon doonaa qorshihiisa guddiga ka shaqeynaya ee ka socda dawlad goboleedyada Soomaaliya iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadirna hawshii diyaargarowga meel fiican ay u maraysaa insha Allah waxa dadka Soomaaliyeed u sheegaynaa in shirkaas aan rajaynayno in wax badan ay ka soo baxaan ra'iisul wasaaruhuna uu ka go'an tahay in markan uu xaqiijiyo sidii shirkaas uu guuleysan lahaa dhammaanna wuxuu ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed inay taageeraan oo soo dhaweeyaan oo ay wixii talo iyo tusaale ay la yimaadaan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay wakiilada beesha caalamka oo ay ka mid ahaayeen qaramada midoobay wakiilkeeda Mr. Swan iyo sidoo kale wakiilka midowga Afrika Madiera iyo midka midowga Yurub Berlanga iyo sidoo kale safiirada dalalka caalamka qaarkood ka jooga Soomaaliya runtii kulankan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxa uu
faahfaahin ka siiyey wakiilada beesha caalamka diyaargarowga socda ee shirka wadatashiga qaran ee Soomaaliyeed ee la filayo in uu ka bilowdo maalinta Khamiista magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu sheegay in maaragtay xiriir fiican uu la lahaa madaxda dowlad goboleedyada had iyo jeerna uu maaragtay la hadlayay isla markaana ay u xaqiijiyeen ka soo qaybgalka shirka isla markaana uu ugu mahadcelinayo. waxa uu sheegay ka ugu dambeeyay inuu imaan doono maalinta Khamiista haddii eebba idmo subaxeeda shirkana uu bilaaban doono. waxa kale uu sheegay inay aad uga go'an tahay in shirkan uu guuleysto oo Soomaalidu ay markan ka maqlaan wax wanaagsan isla markaana dhinacyada oo dhan uu ku boorinayo in ay la shaqeeyaan oo dhinaciisana uu diyaar u yahay inuu dhexdhexaad ka noqdo arrimaha taagan sidoo kalena uu xoogga saaro sidii Soomaaliya doorasho ay u aadi lahayd. dhanka kale beesha caalamka iyaguna way hadleen waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin tallaabooyinka la qaaday ilaa iyo hadda iyo sida ra'iisul wasaaruhu uu muujiyay inuu diyaar u yahay in shirkan uu guuleysto. waxay ku booriyeen in dhinacooda ay garab taagan yihiin wixii taageero maaliyadeed iyo sidoo kale maaragtay farsamo in ay gacan ku siinayaan. marka qorshuhu waxa uu yahay in shirkaas la qabto haddii eebba idmo wax isbedelana ma jiro waana socon doonaa qorshihiisa guddiga ka shaqeynaya ee ka socda dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadirna hawshii diyaargarowga meel fiican ay u maraysaa. insha Allah waxaa dadka Soomaaliyeed u sheegaynaa in shirkaas aan rajaynayno in wax badan ay ka soo baxaan ra'iisul wasaaruhuna uu ka go'an tahay in markan uu xaqiijiyo sidii shirkaas uu guuleysan lahaa. dhammaanna wuxuu ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed inay taageeraan oo soo dhaweeyaan oo ay wixii tale iyo tusaale ay la yimaadaan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay wakiilada beesha caalamka oo ay ka mid ahaayeen qaramada midoobay wakiilkeeda Mr. Swan iyo sidoo kale wakiilka midowga Afrika Madiera iyo midka midowga Yurub Berlanga iyo sidoo kale safiirada dalalka caalamka qaarkood ka jooga Soomaaliya. runtii kulankan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu faahfaahin ka siiyey wakiilada beesha caalamka diyaargarowga socda ee shirka wadatashiga qaran ee Soomaaliyeed ee la filayo in uu ka bilowdo maalinta Khamiista magaalada Muqdisho. ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in maaragtay xiriir fiican uu la lahaa madaxda dowlad goboleedyada had iyo jeerna uu maaragtay la hadlayay isla markaana ay u xaqiijiyeen ka soo qaybgalka shirka isla markaana uu ugu mahadcelinayo. waxa uu sheegay ka ugu dambeeyay inuu imaan doono maalinta Khamiista haddii eebba idmo subaxeeda shirkana uu bilaaban doono. waxa kale uu sheegay inay aad uga go'an tahay in shirkan uu guuleysto oo Soomaalidu ay markan ka maqlaan wax wanaagsan isla markaana dhinacyada oo dhan uu ku boorinayo in ay la shaqeeyaan oo dhinaciisana uu diyaar u yahay inuu dhexdhexaad ka noqdo arrimaha taagan sidoo kalena uu xoogga saaro sidii Soomaaliya doorasho ay u aadi lahayd. dhanka kale beesha caalamka iyaguna way hadleen waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin tallaabooyinka la qaaday ilaa iyo hadda iyo sida ra'iisul wasaaruhu uu muujiyay inuu diyaar u yahay in shirkan uu guuleysto. waxay ku booriyeen in dhinacooda ay garab taagan yihiin wixii taageero maaliyadeed iyo sidoo kale maaragtay farsamo in ay gacan ku siinayaan. marka qorshuhu waxa uu yahay in shirkaas la qabto haddii eebba idmo wax isbedelana ma jiro waana socon doonaa qorshihiisa guddiga ka shaqeynaya ee ka socda dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadirna hawshii diyaargarowga meel fiican ay u maraysaa. insha Allah waxaa dadka Soomaaliyeed u sheegaynaa in shirkaas aan rajaynayno in wax badan ay ka soo baxaan ra'iisul wasaaruhuna uu ka go'an tahay in markan uu xaqiijiyo sidii shirkaas uu guuleysan lahaa. dhammaanna wuxuu ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed inay taageeraan oo soo dhaweeyaan oo ay wixii tale iyo tusaale ay la yimaadaan.